soo dhawaataan barnaamijkii xulashada daljir. bismillaahi raxmaani raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. khiyaartana dhegaysanaysa ay duhur wanaagsan. barnaamijka xulashada daljir ee maanta qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland oo sheegay in la geli doono doorashada golayaasha deegaanka ee degmooyinka dhiman isagoona u digay kooxa uu ku tilmaamay inay si gaar ah iyo aasaas qabiil ku abaabulan yihiin. xukuumadda federaalka ah ee soomaaliyana waxay sheegtay in gobolka banaadir ay siin doonto maqaam gaar ah. gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka banaadirna xilki ayuu la wareegay. muwaadin soomaaliya oo maraykanka ku xiran muddo dheerna waxa uu codsanayaa in la garab istaago, balse waxaa ka soo hormaraya warkii duhurnimo oo ka imaanaya xarunta daljir ee boosaaso. faadimo degan daahir ayaa soo jeedinaysa. mahadsanid. bismillaahi raxmaani raxiim. ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya gaar ahaana kuwa danab ayaa howlgallo waxa ay ka fuliyeen deegaano hoos yimaada gobolka hiiraan. jenaraal odaywaa yuusuf raage, taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, ayaa warbaahinta dowladda waxa uu sheegay in howlgalkaasi lagu dilay xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo gaarayay 18 xubnood, kuwaasi oo ku sugnaa saldhig ay weerareen ciidamada danab. buuq aqab leh oo ka tirsan gobolka hiiraan ayaa sida uu sheegay taliyuhu ururka al-shabaab uu ahaa meel muhiim ah, hase ahaatee haatan ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaana kuwa danab ay ka sameeyeen howlgallo ay ku burburiyeen saldhigyo ay ku lahaayeen. dowladda turkiga ayaa waxa ay sheegtay in habdhaqanka armeniya ee ku aadan azerbaijan ay tahay mid aan la aqbali karin. madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyip erdogan ayaa maalin ka hor waxa uu sheegay inaan la aqbali karin in xaaladda dhacday ay sabab u tahay jebinta armeniya inay ku xadgudubtay heshiis laga gaaray dagaalka 2020. isku dhacyada ka socda isgoysyada la isaga kala gudbo ee Yurub, Aasiya iyo Bariga Dhexe ayaa soo jiidan kara cawaaqib xumo weyn oo Turkiga iyo Ruushka khatar gelin karta. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa ka wada hadli doona dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhaca Azerbaijan iyo Armenia. ugu dambeyntiina dad tahriibayaal ah oo caruur u badan ayaa ku dhintay Lubnaan kadib doonay la socdeen tahriibayaal badan oo ku sii jeeday dalka Talyaaniga, taas oo ku degtay xeebta koonfureed ee dalka Turkiga sida ay sheegeen ilaalada xeebaha dalka Turkiga. war qoraal ah oo ay soo saareen ilaalada xeebaha ayaa lagu sheegay in 73 qaxooti tahriibayaal ah oo saarnaa 4 doomood talaadadii la soo dhaafay ay badbaadiyeen. dadkan tahriibayaasha ah ayaa markii hore ka soo ambabaxay Lubnaan Sabtidii iyagoo ku sii jeeday Talyaaniga, hase ahaatee waxa ay u baahdeen inay shidaal ka qaataan xeebaha jasiiradda ah ee Greega sida ay sheegeen ilaalada xeebaha Turkiga iyo muhaajiriinta la soo badbaadiyay. warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka xulashadana waa iga inta aan dib idin kugu celiyo qaybaha kale ee barnaamijka xulashada daljir oo dhammaystiran. waa hagaag akhyaaray. waa 19 Sebtembar 2022 waxaana waa 19 bisha labaad ee safar 1444 taariikhda hijriyada waxaana ay ku aadan tahay 15 Sebtembar 2022. aynu guda galno barnaamijka xulashada oo faahfaahsan. madaxweynaha Puntland oo hadal ka jeediyay dhawaan tababar garow looga furay golayaasha deegaan ee ka soo baxay doorashadii 3 degmo ayaa ku dhawaaqay in la gelayo doorashada degmooyinka dhiman, isagoo sidoo kale u digay kooxo uu sheegay inay aasaas qabiil iyo kuwa diimeed ay leeyihiin. runtii khibradayda siyaasadeed ee Puntland 3 sano aan joogay iyo aragtida muddadii aan federaalka joogay soo baxaysay waxaan qanaaco ku qabaa koox yar
oo iyagu iswadata inay dal iyo dad hoggaamin karin. waxaan u baahannahay si waasica tala iyo aragti siyaasadeed oo baahsan oo ku salaysan merit iyo waxqabad aan ku salaysnayn jeclaysi iyo eexaysi. haddaynan taas helin waxaa halis ku jirta jiritaankeenna, waxaa halis ku jirta inaan sii ahaano bulsho nool oo degaan cayiman ku nool. waxaa halis ugu jirnaa dalka Soomaaliyeed inuu kala qaybsan iyo burbur uu ku dambeeyo. koox awood kasta leh waad garan kartaanoo kooxihiina soo maray ayaa nooga filan. kooxihii qabaa'ilka ee xoogga badnaa ee estu wada muujinayay waan garan karnaa meesha ku dambeeyeen. kooxihii xoogga badnaa ee urur diimeedyada magacooda huwanaa ay u dambeeyaan al-shabaab waa ujeednaa meesha ay ku dambeeyaan. kooxo kaleeto oo hadda curdina oo dhashay waxa ay qaban karaan waa malayn karnaa. maxaa yeelay labadii faktor ee dadka Soomaaliyeed ugu saamaynta badnaa labadiiba waa soo tijaabin. ururo kooxo salkoodu qabiil yahay warlord bay isku bedeleen, danahooda inay ka shaqeeyaan bay isu bedeleen, inay isdhaxlaan bay isku dambeeyeen, natiijadii ku dambayseenna waa ogeen. kooxihii diimaha oo al-shabaab hadda u dambayso oo xukunka iyo xoolaha waynu arkaynaa maanta meesha ay marayaan iyo siday u fakerayaan. inay horumarka la dagaalamaan, in cid kastoo maya tiraahda ay ka hor yimaadaan oo dilaan oo xasuuqaan. waxaan hambalyo u dirayaa deegaanada runtii gartay inay cadowgaas ka qabtaan oo kacdoonka oo ka bilowda. waxaase ka digayaa kacdoon aan qorshaysnayn inuu nagu celiyo kooxihii aan soo dhaafnoo kaleeto. marka waxaan rajaynayaa kacdoonka bulshada in dowladda Soomaaliyeed iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo deegaanadaas inay si dowladnimo ah u maamulaan oo ka faa'iidaystaan kacdoonka dadweynaha iyo daroonkooda inay iska qaadaan dulliga ah oo iyagu ay hoggaamiyaan oo u hoggaamiyaan sida saxda ah si isbeddelka dhaca uusan u saamayn. waad ogtihiin kooxihii qabaa'ilka markii ay ka saaraan oo la kiciyey ee reer ka saaraan oo meesha tagaan iyagaa reerkii ay ka saareen uga darnaaday. maxaa yeelay waa kooxo kacdoon lagu keenay oo aan disciblin lahayn. marka waan rajaynayaa nidaamka curdinka ee dowladnimo. waxaan ka xumahay jiil badan oo dhallinyaro ah oo cusub oo xoogga aan rabno inaan annaga tawdiifinno oon hawsha gelinno ah inay la jaan qaadeen xilli Soomaaliya ay wareersan tahay oo xukuumadihii kala dambeeyay ee Muqdisho ka dhismaayay iyo Amisom iyo balaayo iyo xalane iyo gaala timid iyo wax isdhex galay oo iyaga naftirkooda dalka inay wax u qabtaan aan danahooda ahayn in iyagu ka shaqaystaan u yimid ku tababartay in ay mararka qaarkood dhaqanka noocaasa oo degdega ah uu dalkeena soo galo. waa halis aan ka digayo jiilka dhallinyaradan aan uga digayo. waxa aan wadnaa annagu waxa weeye Puntland waxa ay wado waxa weeye hayaan dheer oo la rabo dadkeedana inay ku badbaadiso Soomaaliya inay ku badbaadiso. haddii annaga aan ku fashilanno Soomaaliya waxba uma qaban karno. waxaan u baahannahay mar walba maamul wanaagga iyo dowladnimo wanaagga iyo horumarku inuu noqdo wax la taaban karo dalkan ka hana qaada. waa bini aadan dadku waa la isku daydaa laakiin waxaa mar walba ku talinayaa maadaama deganaansho iyo taariikh fog oo maamul iyo isxukun iyo mid hadda cusub oo 24 sano aan leenahay dadka wax saameeya inaan noqono dadka la saameeya inayna noqonin. taladayda koowaad waa midaas. waxaan rajaynayaa cid kasta oo ra'yigaas ka duwan ku fakaraysay inay dib u xisaabtanto caqliga la sheekaysato. waxa loo shaqeynayo oo loo ordayo waa dalkan iyo dadkan horumarkiisa. taariikhduna way qormi doontaa. 100 sano ka hor wixii dhacayaan maanta ka sheekeynayna waxa maanta aan haynana 100 sano soo socota laga sheekeyn doonaa. marka dadka siyaasadda ku jira waxaan kula talinayaa taariikhda iyo naga xumaanay. taariikh wanaagsan aan uga tagno bulshadeena, deegaankeena iyo dadkeenana aan uga tagno. fariinta ugu horeysa aan u dirayo hay-adaha dawladda iyo guddiga doorashooyinka waxa weeye inay u diyaar garoobaan degmooyinka haray doorashadooda. hay-adaha dawladda ay arrimahaas khusayso ay ugu muhiimsan yihiin amniga iyo arrimaha gudaha
in ay diyaargarow xoog leh u sameeyaan sidii degmooyinkaas ay u horgeli lahaayeen. guddiga doorashada waan ugu hambaleynayaa runtii in ay gaareen inay ka mid noqdaan markii la arkay inay ku guulaysteen 3 degmo oo hufan inay ka mid noqdaan korjoogtooyinka wadamada Yurub doorashooyinka dhacay. runtii sharaf weyn ayay u tahay guddigaas guud ahaan iyo gaar ahaan Puntland. waa tallaabo horumar ah oo u baahan in wax laga daydo. waxaan rajaynayaa golayaashan hadda la doortana iyaguna inay heli doonaan inay tagaan oo soo arkaan khibradaha golayaasha kale ee caalamka ka jira iyo sida u shaqeeyaan oo tababarkooda uu noqon tababar gudaha maxaa yeelay inta gudaha waa intii basic ahayd laakiin waxaan u baahannahay inay helaan tababar ay indhahooda ku soo arkaan sida ay u shaqeeyaan dawladaha hoose si ay khibrad intaan waafi ah uga soo qaataan muddaxileedka ay joogaan ay la yimaadaan howlkarnimo ka duwan kii horeeto iyadana insha Allah inaan ka shaqeynaan rajaynayna diilaan. waxaan fariin u dirayaa dadweynaha reer Puntland bilowga dimuqraadiyaddan la mahadiyey oo runtii mararka la tartamaya xasaasiyad ayay leedahay tartan ay leedahay waa dabeecad meel walba ka jirta laakiin aan dareemayo inay muddo yar uga gudubtay oo isdhexgal iyo wada shaqayn natiijooyin ka soo baxay ay abuurtay oo mar dhow aan rajaynayo in la helo 3 xisbi oo marka ay danta state-ka tahay isku aragti ka ah marka ay tahay tartanka iyo waxqabadkana mashaariic iyo qorshayaal kala duwan la yimaado oo dadka fursad u helaan cidda ay u arkaan inay u shaqeyso xilligaas si aad ugu adeegato waadigan selite leexadu ku sidate xad ballan xuskanaye waadigan selite leexadu ku sidate xad ballan xuskanaye libantada dunyada ruxna laasan maaye maxaa luray naftaadii libantada dunyada ruxna laasan maaye maxaa luray naftaadii waadigan selabtiyo lugaha isla waaye meel sare lalmanaye waa hagaag akhyaartana dhegaysanaysaa ay barnaamijkii duhurnimo ee xulashada daljir ayaad la socotaan waxaana uu toos idin kaga imaanayaa xarunta dhexe ee daljir Garowe. Puntland ayaa waxaa ka jira xaalad abaareed gobolada abaartaas sida xun ay u saameysay waxaa ka mid ah gobolka geeska ku yaala ee Gaardafuu ee Puntland. dhawaan waxaa la sheegay in gobolkaasi ay isu daldaleen abaarta darteed 2 qof. waxaa toos khadka ugu jira isuduwaha wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ee gobolka Gaardafuu Saciid Cawil Dhuxul. isuduwe toos waxaad ugu jirtaa barnaamijka xulashada daljir nooga warbixi si kooban xaaladda abaarta ee gobolka Gaardafuu. salaam ya Zakariya aad baad mahadsantahay waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa
ummadda Soomaaliyeed markasta joogaaniin aasata reer Puntland reer Gardafu waxaan mahadcelinayaa raadiyo Daljir markasta u adeegaya bulshada reer Puntland sidaa sheegtay abaar baa jira guud ahaan gobolka oo dhan bay ka jirtaa Puntland oo dhan bay ka jirtaa gaar ahaan gobolka Gardafu waxay ku yeelatay saameyn fara badan shanta degmo ee gobolka sida degmada Gumbax Baargaal Bareeda Caruule iyo Murcayo iyo baadiyaha tuulooyinka deegaanadaas oo dhan way wada saameysay waxaa jirta ceelashii biyaha laga cabi jiray oo aan weerarada ahaa jiraan guri jireen wada gureen waxaa jirta adigu isu socod la'aan waxaa jirta xoolihii oo meelihii magaalooyinka agtooda ahaa iyo dhulkeedii jireen ka hayaamay oo u hayaamay deegaano kale fog oo xataa ka baxsan qaybkooda sida degmada Qandala qayb ka mid oo roob iyo biyo iyo loo doontay qaybo banaanada u soo degay ariga waxa ku jira cudurro iyo ariga xoolo badan baa baktiyaya marka abaartu way jirtaa wayna saameysay dadka iyo dunyadaba waa laga dareemi karaa iyadoo roob in muddo ah roob la arag hadda maalmaha kan meel yar oo la yiraahdo barxa iyo Soomaaliya dalka gurca la yiraahdo wax yar ka da'een haddii meel yar wax ka da'aanina meesha un baa la isugu tagaa meeshii waa la isugu yimi 4 maalin 5 maalin baa la joogay maanta iyo wareegsanayay hadda waxa weeyaan dib wixii waa lagu kala baxay meel kasta marka waxa ka jirta oo mane iyo abaarta ka jirta waa mahadsantahay xogaye dhawaan 2 qof ayaa abaarta darteed isugu dilay deegaano kamid ah gobolka Gaardafu dadkaas xagee kala joogeen dadkaas waa jiraan 2 qof oo waxa weeyaan koleyba duruuf kasta ku timaadee dadka horta istadalay magaalo isku daldaleen ayagu oo midna Baargaal bay ahayd xarunta degmada Baargaal midna tuulo ka tirsan degmada Caluule iyo Cunqud marka way jiraan 2 qof wiil iyo gabar bay ahaayeen hadda waxaan leenahay ilaahay waxa uu naxariisto asaatay koleyba iyaga waxa weeyaan si gaar ah u wareegsano xaaladooda koleyba waxay ahaayeen koleyba dad maartay waxa weeyaan duruuf ku timiyo isdaldalay bay ahaayeen waana dhintay ma la iska saarinayaa oo wixii xun baxaawale mise 2 qof baaritaan rasmi ah baa lagu sameeyay waana la xaqiijiyay inay maskaxaan u jiranayn duruuf kale jirin oo sababta kaliya ay isu dileen ay ahayd abaarta wax la xiriirayay inay waayeen xoolihiina dhaafeen dadkoodii ma horta anigu baaritaan kuma sameyn rasmi oo waxa weeyaan hadda waxa weeyaan Baargaalna ma joogo anigu hadda degmada Bareedaan joogaa meesha la yiraahdo Murcayana ma joogo hasa hata koleyba taniyo duruufo adduunyada baa loo saameyn karaa in isu daldaleen dadkaas ma garan dad caafimaad qaba bay ahaayeen wax dhib lagu moogin way joogeen habeenkii ilaa galabtii waxa weeyaan cayradooda dadka laga warhayay ayay markay seexanayeen waa laga warhayay subaxnimada waxa la kacay mid waliba soo waagi oo deegaanada isku daldalay guddi waxaa jira Puntland oo culimada hormuud ka yihiin oo la yiraahdo guddiga wax ka qabashada abaaraha madaxweynuhuna dhawaan madalbu kaga dhawaaqay 1 milyan inuu guddiga ku wareejinayo oo dawladdu ay ugu talagashay in dadka la gaarsiiyo guddigaas gobolka say uga shaqeeyaan maxaad ka aragteen guddigaas gobolka way yimaadeen niyada Sheekh Cismaan iyo sidoo wasaaradda gargaarka oo gobolka ayaa waday way yimaadeen degmooyinka way wada tageen koleyba wax inkastoo halka loo baahnaa ama boosashigii loo baahnaa ama wixii loo baahnaayo abaarta reer Gardafu haysa ama baahida ay dadku qabaaniin wax ka turjumi kara inkastoo aan la keenin biyadaan bay sameeyeen wayna yimaadeen ma garata 2 jeer bay yimaadeen waa mahadsantahay kaasuna wuxuu ahaa xogayaha isuduwaha wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ee gobolka Gaardafu Siciid Xawil Dhuxul oo barnaamijka xulashada Daljir uga waramayay xaaladda abaarta ee gobolka waa hagaag dhageystayaal barnaamijkii duhurnimo ee xulashada ayaad maqlaysaan wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in Soomaaliya in dadka Soomaaliyeed ay tahay in aysan indho qabiil ku fiirin matalaada iyo maqaamka gobolka Banaadir wasiir Fiqi ayaa hadalkan ka sheegay maruu ka qayb galayay munaasabad uu xilka kula wareegayay gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir waxaan ka mahadcelinayaa inay qodob ka mid ah qodobada ay ahayd meeshaan lagu soo ad ku soo bandhigtay in amniga xaruntaan aad si fiican u sugtay oo caawa suurto gelisay in munaasabad noocaan ah ay ka dhacdo ayadoon ognahay dhacdadii xanuunka badnayd ee 3 sano ka hor ka dhacday allah u naxariisto gudoomiyaheenii hore marka aad baa runtii waa shaqada koowaad guriga in laga bilaabo way
xarunta in laga bilaabo weeye marka aad baa ugu mahadsan tahay intaas ka soke yuusuf madaale saaxiibkeen runtii isaguna waayahan oo dhan mas-uuliyiintii guddoomiyihii cabdi xaashi baa bilaabay guddoomiyihii xil haya oo xilkii ku soo noqday aadan madoobaa ku xigay golaha shacabka haddana madaxweynaha xasan sheekh baa ku sii xigay yuusuf madaalana odayga afraad waaye marka waxaan u malaynayaa dadkii hore waa laga fursan waaye gobolkan banaadir si gaara waa magaalada u weyn Soomaaliya dadka ugu badan oo ku nool yahay hantida ugu badanna ay taalo dawladda Soomaaliya ay ku shaqeyso gobolkan karaamo gaar u baahan gobolkan tixgelin gaar oo Soomaali uga baahan inteeda kale gobolkan baahiyadiisa ay matalaad ugu horeyso dadka Soomaaliyeed inay ku ixtiraamaan oo indha qabiil ay isku fiirin baa looga baahan yahay gobolkan amnigiisa maadaama muhiimadaas uu leeyahay indha gaar in lagu fiiriyo u baahan yahay gobolkan iyo magaaladan waa xuduntii iyo indhihii dadka Soomaaliyeed waxay u baahan tahay 3 milyan oo qof oo degan waxay u baahan yihiin 100 qofood oo amni darrada ku haysa inay iska dhaxsiibaan baa loo baahan yahay oo Ilaahay nuxur ka galiyo oo Ilaahay dhiig u yeelo oo Allah u naxariistada aan wadno aan soo gabagabayno wasaaradda arrimaha gudaha kulay ayadoo ku shaqeynaysa fishanka iyo aragtida xukuumadda gobolkan waxaan rajaynaynaa dadkiisu inay doortaan maamulkiisa haddii Ilaahay yiraahdo in gudoomiyaha Xamarweyne sanduuq loo dhigo kan Shangaani sanduuq loo dhigo kuwa kale sanduuq loo dhigo sidaasaana runtii ay tahay midda dhalinyaradu hoggaanka ay ku qaban karaan midda looga fursan karo waxyaalaha jiro dhan waxaan runtii rajaynaynaa in 4 sano oo aan joogno Ilaahay idankiis inay suurto gasho way kala duwan tahay maqaamka oo dastuur iyo baarlamaan ku xiran iyo doorasho dadku ay soo doortaan dadka matalaya way kala duwan tahay qofkii intaas hadhow muran gelin doono aad bay u kala duwan tahay marka waxaan rajaynaynaa maamulkiisa iyo booliskiisa iyo kulli runtii in laga wada shaqeeyo saraakiishu way joogaan shaqo fiican way qabteen waa hagaag waxaad maqlaysaan barnaamijka xulashada daljir oo toos idinkaga imaanaya stuudiyaha daljir ee Garowe muuse maxamed axmed oo kamid ah waxgaradka Puntland ayaa ku baaqay in reer Puntland ay dawladnimada ilaashadaan isla markaana waxa uu xusuusiyay sidii adkeyd ee Puntland lagu aasaasay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلامية إدعاء الدلجر شغاله هذا هول وذينا هذا وحن ليه هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبا مهتسنتهين شغالها أقاسمياشا مضحضة ريريو دلجر السلام كبعدي أنا قوحا اللي يراها موسى محمد آذن وحن أهي oday soo shaqaynayay ilaa iyo 40 sano muddo waxaan ka soo shaqaynayay qaybaha booliiska Soomaaliya haday tahay iyo haday Puntland tahay waxaan taagnaa oo goobjoog ka ahaa oo booliiskii markaa joogay ahaa markii la aasaasayay dawladdii Puntland waxaan goobjoog u ahaa wixii lagu aasaasay waxaa lagu aasaasay dhib dhaqaale la'aan meel ziira ah oo aan waxba oolin ayaa laga aasaasay raggii markaa madaxda ka ahaa oo ay ka mid ahaayeen maxamed abshir cabdullaahi yuusuf axmed iyo isimadii baabuur ku socon mayne waa lugaynayeen guryo la dego iyo kuraas lagu fariistana haba sheegin horta meeshii laga soo qaaday halkaasay ahayd waxaan leeyahay nimanka maanta hogaaminaya u malaynmayo ma aqaan 2 ama 3 wax la mida inay ka joogeen laakiin xilligaa iyagu ma ay joogin nimanka maanta hogaaminaya goobjoogna kama ay ahayn waa aynu naqaan iyaga waxaan kula talin lahaa
war maanta ayaad xukunka haysaani dhulka nabad iyo barwaaqo iyo lacag iyo iyadoo meel walba maraysa laguma keenine meel fog baa laga keenay dadka wax ay ku qancaan adeer ku hogaamiye dadka reer Puntland waxaan leeyahay warnimayow meesha aynu ka keenno waa ogeyn dhibtii aynu ka soo marrana waa ogeyn xilliga la soo gaartay raggii maalintaa soo aasaasayna maanta haddii cid naftu kaga jidho waa 2 ama 3 nabadgelyada aan ilaashanno aan ku taxadaro wixii dhib ina ku wada isku gacan aynu saaro gorgortan iyo hadal kuma jirto Puntland iyadu in lagu daro ma aha wiilka yarka oo maanta 15 sano jiro iskuulka dhiganaya marka la yiraahdo Puntland xageeda Puntland horta waa dadka iyo dalka ma xukuumadda iyaga marka laga hadlayo wiilku waxa laga rabaa 15 jirkaay inuu isagu leeyahay oo ilaashado weey ee uu san u arag iskuulka stationka isbitaalka dhulka geedka xoolaha xukuumaddu ma leh waxaa leh reer Puntland iyada yaan lagu cayaarin yaan isbaaro loo dhigan yaan dhibaato loo geysan taa geesaha aan iska taagno aan wada ilaalino nimanka hoggaanka haya waxaan leeyahay wax qayb horta waxaynu la wadaagnaa Soomaaliya madaxweynaha Puntland waxaanu uga fadhinaa Soomaaliya waxbay qaybsatay wixii ay qaybsatay wixii aan ku lahaan jirnay waa naqaan isaga wixii aan ku lahaan jirnay baanu uga fadhinaa siyaasadda maanta isaga hogaaminaya taariikhduna wax walba waa ay qoraysaa hogaamiyihii ugu horeeyay oo Puntland wuxuu ahaa Cabdullaahi Yuusuf hadaladiis waxa kamid ahaa reer Puntland wax aan idin anficin idin soo qaadi mayo Soomaaliya waxbay kala leedahay waxba la qaybsadaa nin walba xubin buu leeyahay xubintayadii baan uga fadhinaa ma qaadanayno wax aan naaficin laakiin waxa aanu leenahay oo aanu qaybta u leenahay karabna waxa la leeyahay dalka waxa lagu loo horseedayaa qof iyo cod waa wax qaaliya waa wax aad u fiican aad baan u soo dhaweynaynaa aad bay u fiican tahay xisbiyada badan qof walba inuu codkiisa dhiibto anigu raali waxaan ka ahaynaa codkayga dhiibto aad baan u jeclaa ee aan ninna codkayga ku hadlin laakiin waxaa la rabaa in lala yimaado iyada sidii lagu gaari lahaa oo aan khalkhal ka imaan yaa laga rabaa hogaamiyaasha laga rabaa ma aha in aniga laga rabo hogaamiyaasha laga rabaa haddii ay keenayso khalkhal laakiin oo dhib imaanayo ma yeelayno wax walba nabadgelyada nooga muhiimsan iyo dhulka inaan khalkhal gelin laakiin hadday iyagu keeni karaan xukunkii bay gacanta ku hayaane waa looga fadhiyaa dadku uga fadhiyaa dadkana waxaan leeyahay war waa fiicantaa qof iyo code soo dhaweeyey haddii ay keenayso nabadgelyalaan ma yeelayno haddaan idiin sheegayno idinka waxaa laydinka rabaa halkii nabadgelyada aad idinku u gaarsiin lahaydeen dalka qof iyo cod yaa laydinka rabaa dadweynaha waxaan leeyahay war qof iyo cod haddaynu helayno wax fiican weeye inoo daayay yaynan ka hor imaan aan soo dhaweyno sidaasaan leeyahay dalku wuxuu marayaa meel adag abaaraha taagan aan nolosheennii kolla dadkeennaan hadda nool aan soo marin dadkii dariiqyada ku baktiyayaan dhib baa taagan xaqiiqatan magaalada Buurtino aan ka hadlayno kuwa iyaga oo raadinaya kiilooyin bariisa oo caruurtii baawurilays oo dhibkoodii magaalada yaalla hadda guddiga abaaraha waxaan leeyahay adeer gobolka bari iyo nugaal soo dhaafo oo noo imaada annaguba nugaal baanu nahay gobolka bari iyo nugaal soo dhaafo mudug imaada buurtina waa nugaal imaada ha ka maqnaanini waa taagan tahay dhib xoog laa taagan dariiqa lama mari karo iyagana sidaasaan leeyahay dadka waxaan leeyahay nabadgelyada ha la ilaaliyo booliiska waxaan leeyahay shaqeey adeer annagu waa ka tagnay waa ka odayownay waa ka gabownay xilliga annagu aanu shaqaynaynay oo booliiska ahayn kiis baa dhacay waa la waayey nala kama akhrisan jirin
maba aanan ku hadli karinba dhib baa dhacay waa la waayey dambi baa dhacay booliiskii waa waayeen absolute inta meel yimaadaan maba oran karinba adeer shaqeeye lacag la'aan ku shaqeeye dhib ku shaqeeye waxa shaqaa laydinka rabaa laakiin waxay u baahan tahay dambiga marka la helayo horta aqoontiisii in la leeyahay booliisku ha la tababaro ciidanka booliiska tababar dhab ah la geliyo haddaan qofku uusan aqoon waxa uu ka shaqaynayo ma shaqayn karo nin booliis oo tuuta gashan oo qori wataa nothing waxa adeerba waxayn karo booliisku ka shaqeeyeen intaasna allah salaam alaykum waa hagaag gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa bulshada gobolka ugu baaqay in ay kala shaqeeyaan arrimaha maamulka gobolka Banaadir gudoomiye Cumar anigu waxaan nahay dad yaraantii soo wada koray meel ku soo wada koray iskuulkii Allaahida ayaan wada dhiga jirnay mararka qaarkood intaan Madiina ka soo lugayno ayaan luku imaa jirnay madaxtooyada agteedu ku yiila markaas ayaan luku imaa jirnay mararka qaarkood xaafad ayaan wada deganaynay wax badan ayaanan na soo dhex maray marka waxaan aad iyo aad niyad samidiisa iyo qalbi furaantiisa waa nimaan ku yaqiinay haddana waxaan noo cadaynaysay hawshii halkan lagu soo bandhigay inta uu joogay waxqabadkiisii iyo dadaalka uu sameeyey waxaan leenahay wuu ku mahadsan yahay gudoomiyuhu asiga iyo intii la shaqaysaba wuu ku mahadsan yahay leeyahay far kaligeed fool ma dhaqdaa la yiri far kaligeed wax ma qaban karto runtii iguma cusba sida la sheegay maamulkan horaanu soo maray dadka joogana intii iga dambaysay iyo intii iga horeysay intii aan la soo shaqeeyaba waa dadaan asxaab wada ahaynay oo runtii aad iyo aad kalsooni buuxda aan ku qabo inay ila wada shaqay doonaan haddii ilaah yidhaahdo sidaas ayaana ku niyadsamahay haddii allah awoodda la ogolaado intaa kadib waxaan ahay sida uu ka dhawaajiyey gudoomiyuhu baabuurka darawalkiisii aan ahay baabuurkuna hadduu bacaad galo darawalku suuragal maahan inuu baabuurkana riixo baabuurkana wada suuragal maahan marka waxaan rabaa dadkii riixi lahay inaad idinku noqotiin anna aan isteerinka idiin haayo hadduu bacaad galana aan wada riixno haddii wax naga qalloocdaana aan isu sheegno si aan isu toosinno taladiinna kama dhammin iyo toosintiinna taasna waxaad ogaatiin waa mid aan mar walba aan ku soo toosi doono kuna shaqay doono haddii ilaah yidhaahdo waa runtii waa la daahay waa la cabbaaray waxaan u baahannahay dalkayna iyo dadkayna waxay ku jiraan xaalad abaareed xaalad duruufaysan ay ku jiraan ilaahay waxaan uga baryaynaa in abaarta uu naga saaro annaguna aan naqanno kuwa gacmaha isqabsado dadkaynana aan u gurmanno haddii ilaah yidhaahdo ama ha noqdaana dadkii ku soo barakacay magaaladan muqdisho ee runtii soo maciin biday inay dadkooda dhibaataysan halkan dadka joogo inay ehel iyo arxanba ay ka helaan taasna waxaan rajaynaynaa inaan ka dhabay doonno haddii ilaah yidhaahdo soo sidaas maaha taasna waa arrin noo taallo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa saraakiisha ama hay-adaha amniga oo xaaladda amni oo aan ku jirno oo lagama maarmaan tahay in la isgarabsado haddii aysan bulshadu isgarabsan gacmana aysan isqabsanin iyaduna amni imaan maayo amnigu wuxuu ka dambeeyaa ummad wada heelan una wada heelan inay iyadu amnigeeda sugtaan taasna waxaan haddii ilaa yidhaahdo
aan anigu dadka u horreeya naqon doonaa inaan la shaqay doono hay-adaha amniga sida aan uga gudbi lahaynay dhibaatada amni darrada ayna haysato oo labada dhinac naga soo wajahday hadday ahaa laheeday kuwa arxanlaabayaasha ah ee argagixisada ah iyo kuwa kale ee beryahan magacyada kala duwan la baxay oo weero iyo magacyo samaystay haddii ilaa yidhaahdo waa dul istaagaynaa xooggaynaana isugu gey doonna haddii ilaa yidhaahdo inaan dadkayna iyo dalkaynaba aan ka kor yeelno insha allahu waa hagaag akhyaaray barnaamijkii duhurnimo ee xulashada daljir ayaynu ku guda jirnaa muwaadin soomaaliyeed oo 15 sano ku xiran dalka Mareykanka ayaa ka warbixiyay xarigiisa waxaana uu sheegay in si sharci darro ah looga qabtay xeebaha Soomaaliya waxa uu waramay TV-ga dalsan ee Muqdisho sidan ayuu waraysigiisu u dhacay waxaan u dhashay waddanka Soomaaliya magaalada guud ku dhashay xamaraan ku barbaaray waa gartay hadda xagee joogtaa hadda waxaan ku xirnaa waddanka Mareykanka waddanka gobolka New Hampshire New England meeqa sana xiran tahay waa xiranahay 12 sana xiranahay waa gartay marka maxay tahay faldambiyeedka lagu heesto oo aad xariga ku mutaysatay aniga niyo ana waddanka Soomaaliya ana ka shaqeysana xeebaha Soomaaliya ka shaqeysana ayaa xeebaha Soomaaliya ciidan Mareykanka ka qabteen waa gartay waxay ka qabteen xeebaha Soomaaliya dhinaca Kismaayo xaggeeda ana ka shaqeysana marka dagaalay danooyin oo qabtay dad waxaa tiinoo barabada waddanka ay lagu soo xawileen noo soo qaadeen waa gartay waxaan ay qabteen 2010 bishii aabta eebo kowdeedii waa gartay waddanka Mareykanka la keenay waddanka Virginia gobolka Virginia 2010 bishii March 2010 waa la xukumay waa gartay meeqa sana lagu xukumay waa lagu xukumay waxaan geystay iyo midna waxay ku qabteen iyo waxaan geystay midna ma jirto waa gartay marka maxkamadda maxay soo saartay oo xukunka maxay soo saartay maxkamadda markii la geeyay nimanka looyare noo qabtay looyarada afkooda ma noqon luqadna Ingiriiska ma noqon dad Soomaaliya maqaala turjumaan oo keenay dad Soomaaliya la xataa waxyaabay ku hadlayeen iyo qaabkii hadlayeen midna ma la fahanteen waa ku wararsanaa waa gartay marka yaa kugu wehliyo adiga oo hadda xabsiga kugu la xiran ani kaliya ahay waxa ahayn 5 ina ahayn aniga afar kale oo la qabtay labo wiil oo la socodka dooyara weynay oo ku shaqeysanaynay laba kalena ayagana maqaala doon kale wateen weyn ay ku shaqeysanayeen ani waxay qabteen habinimo ay qabteen oo 12 habinimo oo maqaala badda maqaala ka shaqeysanaano oo iska daadano labada kalena waxay qabteen subaxii 6 saac oo maalmeed qabteen waan isku halgeeyeen waxay dhaheen dibiga waxaa tiina burcabadeen waa gartay marka hadda raggii kale saaxiibadaada ahaa ee doonta wada saarneedeen xaggee hadda ku sugan yihiin gobolo kale ku xiran yihiin aniga keliya aan ku xiranahay wax Soomaaliya lama joogaan raggan waa socon waana la kala tuuray midba gobol ay geeyeen waddankan niyo dhibaata amtaanaga haysto waddan oo dhan ku xiranahay This call is from a federal prison. waddankan xasidana waa kooxaha loo kala degan yahay qarnaa koox ma haysano waddan shaqo ku xirana 12 sano xiranahay waddankeena maqaala dadka naga inta ehelkana waa la soo dheereeyay waddan shaqo ku xirana waa gartay marka hadda xabsiga dad Soomaali ah ma kugu soo booqdaan wax soo booqda iyo wax iimaad ma jiraan nin dhiga xirana baahay dadka ila joogo xabsiga joogo dadka soo booqda alaabada iimaada dadkooda wax loo imaana midna ma jiraan inta soo xiranahay waddankan xasidana waa xasiyo waa ganacsi waa ayaan ugu haystaa wax diblaan geesan midna ma jiraan waa gartay marka diblaan lagu soo ogeyn ehelkaaga ma la xiriirtaa ehelkii markaa fursad helo oo ikhtiyaar mali oo markaa hal saac ama 2 saac la soo daayay dadka la ayla barwara warhooyo ilmeygi maqaan intaas oo marka marna telefonka awada waa xuntahay marna lama hadlo
oo xilliga hawada cunug markaa waa ku dhibana telefoonka ma la ogol yahay xabsiga dhexdiisa telefoonku waa mid saaran sharciisa oo maxaabiista la siiyo shay toban daqiiqo la siiyaa inta ka badan oo aniga hadda alafii hata fayba ku jiray inta dad badan codsada waxaa niyo dad baan rabaan la hadlaa iyo gudbina maxaabiistan ka codsaday markaas waxay waa kusiina oo turmada la dheheen waa gartay marka xabsiga hadda aad ku xiran tahay bal ka waran xaaladda ka dhex jirta dhanka cunnada dhanka caafimaadka daryeelkiisa waa sidee wallahi niyo xabsi hadda warkaan aan ku faafino waxaa laga yaabaa in dalaas ii timaado haddaan waddanka wax ka sheego iyo xabsidooda iyo qaabkooda waa gartay hadda marka muddo 12 sannadood ayaad xiran tahay xabsi daa'inna waa lagugu xukumay marka maxaad rajaynaysaa arjeenaya niyo in meeshaan aniga markaan codsaday aan waddankiiga maalidiiba waddankaan uma dhalan waxay dowladda Soomaaliya meesha kala dhigaysa waddanka Soomaaliya dowladda Soomaaliya maantana waddankiiga dowlad yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh wasaaraha Soomaaliya Xamza Abshir Haruuse iyo wasiirka arrimaha dibadda in arrimaha anaga noo doodaan oo waddankaasi u soo celinayo falgid galaan intaasoo waxaan nahay 32 qof wadaana 32 qof dhammaan ma Soomaaliba waa Soomaali waaye Soomaali dibiga Soomaali ka wadastana hal xabsi miyaad ku wada xirantiin maya waxaan ku xiranahay xabsi kala duwan gobollo kala duwan aan ku xiranahay mid xabsi ku xiran intaba xabsi daa'ina lagu xukumay qaar xabsi lagu xukumay qaar lagu ma xukumin oo dembiga qabteen barabada noqota aqritiin dembiga aniga dhima aniga waxaan maxaa dib ku bartaa waxaan subiye waxa weeyday midna ma jira waxaan subisay ma jira maxaa dib ku bartaa ma fikirs ku dilaa ma waxaan geesana subiya aan gartaa aada u maasanta hal mar magacaaga nagu celi magacii waxaa leeyahay Abdulla Dirir Raage waxaan dhashay gobol Galguduud meel ku dhashay waxaan ku baaray magaalada Xamar dadkii Xamar badagayiin Qur'aan ila Soomareeb wala waxaan dowladda Soomaaliya in doodo Cabdiwil waa hagaag qaybihii dambe ee barnaamijka duhurnimo ee xulashada daljir ayaan ku sii siqaynaa haatanna xubintii sicirka iyo suuqyada xoolaha ayaan la Cabdullaahi Jaamac ayaa ka soo jeedinaya xarunta daljir ee Cabudwaaq dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii sicirka iyo suuqa oo idinkaga imaanaysa istuudiyaha daljir ee magaalada Cabudwaaq anigoo ah ayaan la Cabdullaahi Jaamac ayaan idin soo jeedinaya aan ku bilaabay kiishka bariiska ah 50 kiilo maanta qiimihiisu magaalada Cabudwaaq waa $32 kiishka burka ah waa $33 kiishka sonkorta ah waa $37 kartoonka baasada nooca loo yaqaan xilwa waa $11 caagada saliidda ah waa $7 iyo bar caanaha waaweyn ee daasada nooca loo yaqaan xilwa waa $17 dhinaca qudaarta dhagaystayaal kiilada baradhada ah waa 70 senti kiilada basasha ah waa 60 senti kiilada yaanyo maroleyda waa $1 iyo 20 senti dhinaca shidaalka dhagaystayaal baasiinka taangigii waa $30 naaftada taangigii waa $24 gaaska cuntada nooc waa $41 halka nooca kalena uu yahay $30 iibka xoolaha geela qalliinka neefka ugu hilboon waa $600 dibaaxa ariga neefka ugu hilboon waa $60 neefka jarka ee weyn waa $70 halka neefka shaqiiqda ah ama raabaca loo yaqaano uu yahay $50 dhagaystayaal xubintii sicirka iyo suuqa waa naga intaas waxaan idinkaga imaanaysa istuudiyaha daljir ee magaalada Cabudwaaq anigoo ah Yaalla Cabdullaahi Jaamac ayaa idin soo jeedinayay waa u mahadsan yahay ayaan le Cabdullaahi Jaamac oo xubinta sicirka iyo suuqyada xoolaha ka soo jeedinayay istuudiyaha daljir ee Cabudwaaq guud ahaan barnaamijka xulashada daljir ee maanta intaas ayuu ku egyahay wuxuuna idinkaga imaanaya xarunta daljir ee Garowe Maxamuud Jaamac ayaa ii farsameynayay waana ku mahadsan yahay farsamadiisa idinkuna waad ku mahadsantihiin dhageysigiina intaynu dib u kulmi doono nabadgelyo Chiefs
قلم قلم تعيد